Saaxiibay mahadsantihiin inta daawanaysa caawo oo maantaba waxaan rabaa inaan ka hadlo yaa qofku hami isku yeeli karaa keligiis yaa dhiirigelin u baahan yahay keligiis asagoo meel joogo meel sama gaari karaa meel sare meel sare uu gaari karaa saan wada ognahay dhiirigelinta koowaad waxay ka timaadaa nafsadaada inaad kow kalsooni isku qabto labo in aad geesinimada aad kaamirad kor imaanaysa leedahay saddex qaab hadalka oo hadlayso inuusan kaa dhowin marka aad kaamirada hor timaado oo lagaga baahan yahay waa shuruudda koowaad midda kale waxay tahay haddii aad tahay youtuber waa inay hami u leedahay ahmiyadaadu tahay in aad fiidiyoyaal duubto aadan waxa u arkin dadka kugu mashquulaya Soomaali Maxamed kuma wada taageerayso kaamana soo wada horjeesanayso xaasidku waa jiraa iyo nacabku sokayuuna waa jiraa marka in lagu wada taageerana ma dhacayso in laga soo wada horjeesana ma dhacayso waxaa kaloo jira qaab hadalka meesha la imaanayso marka in lagu mashquulo dhasaan waaye dukaan la taasaana tahay South Africa ku wareertay ma iska dhiishi janaaladan waxaad ka faa'iiday waxaad ka hadlee maaha qorshaha hadafkaadu taas noqon ma garat geesinimada kaamirada marka hor timaado aad hadli karto dadka u sheegi karto ma fahanti marka waxaan rabaa inaan taas wax yar kaga tilmaamo qof walba meesha uu joogo shalay kula mid u ahay qof walba caana ka wada maanta oo famous ah shalay hadoo kale u ahay 9 bilood lagu wada dhashay waxba la isma dheera kartida iyo intaan iyo hamiga la isdheeriyahay wariyaal ka shaqeeya Soomaaliya oo lagu tilmaamo waxay ahayd meesha ugu dhiban tusaale ahaan wariyaasha kuwa Muqdisho inta tusaale u soo qaato haddii qof ayaa ka mid ah la xiro waa doodaan maalin waxaa jirtay ayagu isxaasi jireen laga dhex faa'iideysan jiray marka xagaarsi in isku wada doodaan waa ogaadey meesha laga haysto ay fikireen hadduu xaq darrada hadduu xaq ku xiran hatta xaq ugu haysto waa buunbuuniya waa aragtay dad kale meeqa dhibaato soo gaarta shacabka caadiga meeqa oo wax ku dhacaya sheega loo ooyaan waa marka waxa loo baahan yahay waxaan aad sameeyayso inay muhiimadeedu koobaad tahay marka hawshu waa fiican tahay meel fiican wax ku socdaan waana mahadsantihiin intaas idinku soo koobayaa